halkaan saaka isugu yeeray inaan war saxaafadeed ka qabanno war saxaafadeedka ugu horeyn runtii waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo mujtamaca iyo bulshada ku nool guud ahaan gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo runtii sidii habsamada leh dawladnimada leh wadaniyada leh ay ula shaqeeyeen hay'adaha amniga ay uga qayb qaateen xasiloonida iyo amniga magaalada iyo gobolka guud ahaan ay u soo dhaweeyeen dawladda waxaan rabaa mahaddaas inaan si gaar ah bulshada ugu celiyo runtii iyaga la'aantood nooma aysan suurtageleen shaqada aanu runtii qabanay ama aan mujtamac u hayno aad iyo aad baan rabaa inaan runtii uga mahadceliyo taas mahadcelinta markii aan halka uga gudbo runtii ciidamadu saawarkeeda haysaanba waxay bilaabeen hawlgal markay taariikhdu ahayd 9kii bishan ku jiray bisha 8aad ama August 2020ka hawlgalkaas oo dhacay aroornimadii ay soo galeysay maalintii Axadda hawlgalkaas wuxuu ku jihaysnaa sidaad ogtihiinba magaalada qayb kamid ah xerada la jiray Kabista oo muddo dhowr sano ah ay kooxo runtii dambiilayaal ay u haysteen afduub taasoo iyagoo ku hayay mujtamaca degan magaaladan dhib tira badan oo ay geysteen falal amniga lid ku ah oo ay kamid yihiin dilal ay kamid yihiin khamro waaridaad ay kamid yihiin amni xumo oo ay kamid yihiin rasaas dhacda ciidankaas Ilaahay mahadiis hawlgalkaas loo qorsheeyay buu u fulay si guulna buu ku dhamaaday goobtii gacanta lagu dhigay gacanta markii lagu dhigay subaxnimadii waxaad ogtihiin ciidanku isagoo barihiisa jooga markii la bilaabay kormeerka booqashada ciidanka shaqadii ay qabteen saraakiil ay tageen goobtii uu kamid yahay taliyihii ciidanka ee madaxtooyada Cornel Cusmaan in kooxahaasi ayagoo si dhumaalaysi u soo galeen meel oo ay meel dheer ka toogteen halkaasna ay ku dileen maaragtay laba sarkaal taliyihii ciidanka madaxtooyada iyo sarkaal kale oo ka tirsan ciidanka madaxtooyada Ilaahay ha u naxariisto samari ibn Allah naga siiyo ayna ku dhaawaceen dhowr qof oo runtii ciidanka ka tirsan iyo shacab badanba runtii waxaad ogtihiin inta kadib hawlgalkii uu sii socday hawlgalkaas waxa lagu qabtay dad dambiilayaal oo tiro badan oo awal nooc calaamadeysna waxa lagu qabtay dad falal horay wadankan uga geystay waxa kale lagu qabtay mukhadaraad tiro badan hawlgalkaasi wali uu bilaabmay uuna socon doona hadii Ilaahay idmo hawlgalkaasi waxaanu maartay aan rabnaa inaanu ugu mataaneyno aan dhahano waa hawlgalkii Cornel Cusmaan ee xasiloonida iyo nabadda ku adkeynta gobolka Mudug runtii hawlgalkaasi saad ogtihiin maanta iyo xalay iyo berri iyo maalmaha waa socon doona magaalada waxaanu bartilmaameed noo ah dhammaan nabadiidka oo ay ugu horeeyaan kooxaha al-shabaab iyo inta maartay la halmaasha ay ku dhuntaan oo ay kamid yihiin kooxaha daraagiska oo ay khamrada iyo maandooriyaha dhamaantii ay ku jiraan kooxaha dambiilayaasha ee falalka gobolkan hore ugu geystay oo aan gacan ku soo dhigi doono iyo dhammaan wixii amniga iyo xasiloonida lidka ku ah hawlgalkaasi waxaan rabnaa sida inuu u socdo bulshaduna runtii ay ogaato ayna u soo dhaweyso ay ula shaqeyso sidii ay hore ula shaqeeyeen hadafka aan u socno waxa weeye waxaan rabnaa ninka subaxdii odayga ahay markuu aroortii salaad subax rabo la aadamo masaajidka aaday inuu amni buuxa ku aado amni buuxa Ilaahay ugu soo cibaadeysto amni buuxa ku shaqeysto habeen iyo maalinba aroorba lagu caawiyo fiidna lagu caawiyo amnigaasi haddaan bulsho aan iska kaashano sida aad nolol shaqeysaan waxa hubaala oo hubantiya inaan gaari doono waxaana inay maraga shaqada ay ciidamada amnigu gacanta ka qabteen dhammaan waxaan ka codsanaynaa bulshadeynta gobolka Mudug gaar ahaan Gaalkacyo inay gacan buuxda nagu siiyaan hadafka aan leenahayna waa xasiloonida iyo adkeynta amniga magaalada aan rabno in aanu sharciga gacanta ku soo celino waxa weeye runtii hantida ka maqan oo sida xarunta Kabista ay ahayd iyo kuwa kale oo maqanba oo koox gaar ay haystaan gacanta shacabka ay dib ugu noqoto oo ay ka qayb qaadato dhisinta iyo bilicda magaalada arintaas waxaan rabaa inaan runtii hoos ka xariiqo qodobka ugu dambeeya aan rabaa waxa weeye in aanu mar labaad ku celiyo shacabku inay maaragtay si fiican ay ciidanka amniga ay ula shaqeeyaan bartilmaameedka aan sheegayna ciidanku uu ka hawlgali doono waxaan rabnaa inaan hubka sharci darrada magaalada lagu haystaahay uusan socon waxaanu haynaa waxyaalaha amni darrada sababa ee gaadiidka aan sharciga lahayn ee maaragtay sumad la'aanta ah magaalada dhibta badan ku geystaahay inaysan aan wax ka qabanno waxaan rabnaa daraagiska inaan wax ka qabanno dhammaantiin qaybihiisa kala duwan waxaan ka rabnaa jidkooyooyinka iyo tuugada furashada moobilada ee qaybkii inaan wax ka qabanno hadafkaygu ka weeye isku hadaf baan nahay waxaan rabnaa inaad ciidanka hor kacdaan oo aad horseedaan loo diyaar garoobo
inaanu maaragtay shaqadaas dhammaystiran aynu wada gallo runtiina aad iyo aad baan ciidanka ugu dambeyn uga mahad celinayaa ciidanku diyaar wuxuu yahay inuu waajibkiisa guto in uu shaqada loo igmaday ee ummadda u hayo reer Puntland uu guto askarigu iyo sarkaalkuba diyaar u yihiin inuu waajibka ku dhintaan haddii kalena ay xaqiijiyaan runtiina waxa weeye marag mudoonta weeye inaad saraakiisha noogu fiicneed meesha ay ku dhimatay annagana waxaan rabnaa inaan wadadan qabno si aan qaadno si aan ugu guuleysano waxaan rabaa shacabka inaan u sheego kana codsado haddii ciidamadu ay galaan qaladaad oo qaladaad ka dhaco waxaan diyaar u nahay isla xisaabtan waxaan diyaar u nahay qaladaadka inaan saxno xafiiska iyagu iyo telefoonada iyo deegaanka iyagu waa u furan yahay dhammaan shacabka inay wixii dhaca inala soo socodsiiyaan waxaan diyaar u nahay inaan isla xisaabtan gallo waxaan diyaar u nahay shacabka inuu la xisaabtamo ma rabno shacabka iyaga inay naga gaadho waxaan munaasib ahayn marka waxaan rabnaa arrintaasi arrinta ugu muhiimsan weeye in aanu kolley haddaan anagu boolis nahayna xafiis baa jira gaar ah oo aan dhawaan shaqo geli doono aan ugu talagalay cabashooyinka shacabka oo ciidamada had iyo jeer ka dhaca gaar ahaan booliska inaanu samayno ay qayb ka yihiin inaanu korsantaradii aanu hirgelino magaalada laakiin intaan hadda operationka wadno wixii khaladaad oo dhaca isla xisaabtan baan diyaar u nahay ma rabno waxaan munaasib ahayn ama sharci ahaan shacabka inaan kula kacno marka waa furan yihiin albaabadayadu soo dhawaada aad baa u mahadsantihiin